kulankan oo maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka nabadoonnada salaadiinta aqoon-yahanka beelaha Banaadiriga ayaa waxay kaga arrinsadeen xaaladaha siyaasadeed dalka gaar ahaan midda doorashooyinka ee Banaadiriga qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ku jiraan saxiixayaasha arrimaha doorashooyinka beelaha Banaadiriga ayaa sheegay in doorashadoodan ay u gacan gashay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isla mar ahaantaana aysan iyagu wax lagu ku lahayn sharafta karaamada ciidada diinta islaamka dadka usul diin ay ku fasilmeen ilaahay u hubeeyay oo diinta ay keeneen xuquuqooda haliska ilaaliyo xuquuqooda haliska ilaaliyo yaan la dhihin bari aniga waxaan u maleem waxaan oo aniga sameeynay waa qaldan hal dhihin qaladkaad haysin xaqdarada haysin waad ka gaaranaysin iska ilaaliya hadda maanta saacada la joogo anigoo ku hadlaayo magaca guud odayga guud ee beesha qalmashuwe aniga waa ku jiray magacayga meesha dadka la soo dhigi laakiin ma qabataa anigoo kursiga ku fadhiyay kursiga lahaay oo saddex oday lahaay haddii la yiri kaligaa imaaw maxaan meesha qabanaa kaligayga oo qofka kale kursiga tartamayna saddex oday la siiyey taas waxaan u arkaa aan ku bereeyo midida keeso taasna mid aan qaada karna ma aha ra'iisul wasaaraha cabashaan u qoranay cabashadeena kama soo jawaabin guddiga doorashooyinka waa bedelo yiri guddiga uu bedelay mana wicin manoona shirin anaga xali ayaan ka hadalnay waa qaadacnay in aan ka qaybgelin doorashada xali ayaan shirjiraa'id qabanay waa qaadacnay waana diidnay xaqdare inaan doorasho uga qaybgalno waa arin laakiin waxaa intaas wax lala yaaba oo laga sii yaaba in la dhaho leegu been abuurto magacayga la soo qaado oo warqadow saxiixay guddiyaas u saxiixay been abuur anigoo jooga xaadir ifkii ku noolahay leegu been abuurto taas waa ayaan daro cid warqad aan u saxiixay iyo meel aan tagi xafiis ra'iisul wasaare ma aadin xafiis guddiga doorashada meesha lagu galaayo ma aadin nin walbana kursiga uu leeyahay waa la yaqaanaa in kursi qof kale lagu wareejiyo qofkii kalena qof kale lagu soo wareejiyo baadil cad waaye haddana dadka loogu daro kursigaasaa tegaysaa waxaa qaadanaysaa 40 oo erga ah haddii ani 40 ay siisay adiga inta kana qaad waa baraysay maxay wulu goynay khiyaanadii ugu weyneed ma idana laba waxaa kaloo intaas dheer mudan ra'iisul wasaare iyo guddiga doorashooyinka dhammaan beesha caalamka madaxweynaha inta ay qusayso arrintan doorashooyinka waxaan caddaynaynaa inaan qaadacnay doorashadan la magacaabay beri oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 2022 gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Cabdalla Cumar Saalax oo ka mid ahaa guddiga doorashooyinka beelaha Banaadiriga isagoo sheegay in guddigaasi iskaga baxay maadaama uu ka waayay cadaalad meeshii guddiga ka ahay waa ka soo baxay xilligii waa ka soo baxay waxaan u soo baxay laqdabada meesha ka jirto waxaan kale aan u sheegaa reer Banaadir oo maanta nalaga xukumayay guddigeena gudoomigeena iyo guddigeena oo dhan nalaga xukumay oo laga xukumayay ra'iisul wasaaraha qaybtiisa ayaa laga xukumayay ra'iisul wasaaraha qaybtiisa laga xukumayay iyo gudoomigeena iyaga meesha warqad walba oo ka soo baxdo waxaa ka soo baxayay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.